السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن صاحب بدي إذا شرفت يا كرامة عليها كني قد دعونا يسود هذا ولكن أحمد بقية ومركلة إدي السلامية. أن سؤال بدنا يا السويدين يا وكسابسن دنك التلالك. خاصة ذاتك عن تلالين وحالد ذات سوق معنا يسوع مركلة جاية قبل إنك السياسة دا يا شروطها عضق مركز اللجوء الربيع ما ننكسر الشروط دي هرم متقدرن اللجوء الربيع. هذا بس عشوا واحد هاي تلالك شرع مياه لقدرية مثل تلالك خاصة مياه لقدرية. سؤال شاس أيان مانتا إذا كتجوابيا إن شاء الله فأفهم فربنا وقبل حندونا قابك حالد وسعته وح إسبدلي وح عصب أيان إن شاء الله مانتا فلان قيدونا سولو هذا ساحب بيال هالكاد قد دعونا إنسان وأحمد بقية برتاع كل إنها يوتيوب سواء لو واحد معلومات كان أتكيه لي كريسان مركز يجو قرالة يجو مقالة يجو عضبة برتا فيسبوك سومالي جيرماني تي في سولو هذا ساحب بيال channel keena subscribe saara 20 kun ayaa wax yar inooga dhimayeen waxa isku daynaa inaan maalmaha soo socda gaarsiino insha Allah nagala qayb qaata horumarinta channel keena anaguna waxaan isku dadaalaynaa inaan mowduuciyo markaasi muhiim ah oo noloshiina taabanaya inaan halkan si maalin la aydu ku soo gudbino waa tahay arrinta talaalka iyo arrimo fara badan oo xukuumaddu waxay doonaysaa inay samayso meelaha qaar sharci laga dhigay meelaha qaar shaqaalihii talaalna iyo kuwii aan talaalayn la kala saaray oo kuwii aan talaalayn shaqooyin hoose loo diray kuwii talaalana shaqooyin sarsare loo diray arrimahaas oo dhan ayaanu falanqayn doonaa waxyaabaha mustaqbalka isbedeli doona iyo saameynta ay ku yeelanayso bulshada Soomaalida ee dalka Jarmalka iyo guud ahaan qaaradda Yurub ku dhaqan waa tahay intaan qodobkaas u gelin sidoo kale dalka Jarmalka midooyinka u dambeeyay waxa ka dhacay dhibaatooyin fara badan oo dhalinyarada Soomaalida ah ee dalka Jarmalka ku dhaqan saameyn badan ku yeelatay dhalinyaro badan baad maqasheen oo dad mindiyo ku dilay kuwa kale oo naftoodii waayay ayaad aragteen familiyo badan ayaad ogtihiin oo dhibaatooyin ay dhex taagan yihiin haddaba arrintaas saa loo xalin karaa waxaa jira ururo iyo jaaliyado Soomaaliyeed oo arrintaasi ka hawlgalay isla markaasina isku dayay inay munaasabado qabtaan wacyigelin qabtaan magaalada Damishtaad gobolka Haysan waxa toddobaadka adigu bisha soo socota 9 bisha 10aad 2021 waa bisha had soo socota 9 bisha 10aad 9keeda ka dhici doona munaasabad balaaran oo ay isugu iman doonaan dad aad u kala duwan isla markaasina laga hadli doono dhibaatooyinka familiyada dhexdooda ka taagan sababaha keena in carruuraha laga qaato familiyada laga hadli doono arrimaha xanuunada dhimirka isku buuqa iyo waliba qofka stresska faraha badan uu ku dhaco sida uu xalin karo calaamadaha lagu garto iyo qofka marka uu ay ku dhacdo hadii uu calaamadahaas isku arko sidoo u xalin lahaa intii aanu isagu dhibaato gaarsiin cid ama naftiisa aan dhibaato gaarin arrintaas munaasabad balaaran ay noqon doontaa waxa ka soo qayb gali doona Dr. Faadumo Sheekh Ali oo ka Scandinavia ka imanayso دكتورة وين أو arrimaha maskaxda familiyada iyo waliba arrimo fara badan ku takhasustay ayaa munaasabadaas iman doonta ilaa Scandinavia inta ka soo duusho halkan iman doonta saa waqti ula qaatay bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxa iyaduna goobta iman doonta Saamiye Yusuf gabar leehdo oo iyaduna arrimahaasi u dhuun daloosha culimada dhalinyarada aqoon-yahanada iyo waliba wax garadka Soomaalida ah ee dalka Jarmalka ku dhaqan ayaa munaasabadaas iyaguna lagu soo xasuumi doonaa munaasabad balaaran ay noqon doontaa haddaba 9 bisha 10aad fadlan tag oo arrintaasi munaasabadaas ka qayb qaado waxa chance u heli doontaa inaad su'aalo si toos ah u weydiin kartid dhaqaatiirta iyo culimada halkaas joogta iyo dadka markaasi wax garadka ah sidoo kale marka munaasabadu dhamaato waxaad u heli doontaa inaad chance shakhsiyana adiga iyo familygaaga ama adiga kaliya aad gaar u la baxdid dhakhtarka oo aad su'aalaha u baahan tahay inaad weydiisid markaasi aad weydiisid munaasabad balaaran weeye faa'iido badan aad ka helaysaan balaan gareysta maalinta bisha ay 9 tahay 10keeda aadada bisha 10aad 9keeda iyadoo qoraal waxaan soo dhigi doonaa sawirka iyo adresska iyo macluumaadka oo dhan page-ka Somali German TV fadlan booqo halkaas ka helaysaa adresska telefoonada kala xiriiraysid iyo waxa laga hadlayo iyo sawirada dadka markaasi munaasabadaasi ka soo qayb galaya waxa ka dhacaysa magaalada Damishtaad hadda markale ay ku celiyo aniga qodayda waxaan isku dayaa inaan ka qayb galo insha Allah faa'iido badan aan ka helayo macquula inaan haddaan cid wax u faa'iideyn karana aan u faa'iideeyo aniguna aan ka faa'iideysto insha Allah kaasaan isku arki doonaa Soomaalida Jarmalka waa tahay iminka waxaan geli doonaa qodobkeennii ahaa talaalka khasab miyaa laga dhigayaa
saad ogtihiin xukuumadda dalka Jarmalku waxay hore u sheegtay in aanu jirin wax sharci ah oo khasab kaga dhigaya qofna inuu talaalka qaato oo talaalka qof kasta uu choice-kiisa leeyahay isla markaasina isagu u go'aansanayo inuu qaadanayo iyo in kale ilaa markii uu talaalku soo baxay dhammaadkii sanadkii hore ilaa hadda sidii ayay ku socotaa laakiin isbedelo ayaa jira sharcigaas waxaad moodaa meelaha qaar inuu ka dibicsan yahay oo meelaha qaar dib loo fududeeyay toddobaadkii aan soo dhaafnay waxa xukuumadda dalka Jarmalku ansixisay oo sharci garaysay in dadka ka shaqeeya guryaha dadka waaweyn dadka ka shaqeeya meelaha carruurta lagu hayo ama kindergartenada ama goobaha kale carruurta lagu hayo iyo dadka ka shaqeeya iskuullada in qofkii talaalan iyo qofka aan talaalayn la kala saarayo macnaha in booska ama mas'uulka goobtaasi uu u yeedhayo shaqaalihiisa awood u leeyahay inuu u yeedho isla markaasina uu la fadhiisto kuwa aan talaalayn weydiiyo sababta ay isu talaali waayeen isla markaasina haddii aanay doonayn inay istalaalaan in laga dhex saaro bulshada oo shaqooyin markaasi aanay dadka contacti la samaynayn loo diro kuwa talaalana kaadhadh greena la siiyo oo lagu garto inay kuwani talaalan yihiin aamin yihiin shaqooyinka muhiimka ee dadka dhex gelayaan macallimiin oo kale kuwa dadka waaweyn u shaqeeya oo kale inay dadkii waaweynaa u shaqayn karayaan kuwa talaalani kuwan talaalayna qaybaha cuntooyinka iyo nadaafadda iyo arrimaha hoose markaasi aanay dadka contactiga la samaynayn ka shaqayn doonaan sidoo kale macallimiinta ayaa lamid ah dadka iskuullada ka shaqeeya adigu macallimiin ama shaqaale kale ha ahaado dadka kindergartenada iyo goobaha carruurta ka shaqeeya taas sharci ayaa laga dhigay haddaba waxaa soo baxay war kale oo Laschet musharaxa madaxweyne xisbiga xaakimka dalka Jarmalka ayaa isaguna qorshe cusub wata waxa uu doonayaa in dhammaan shirkadaha dadku ay ka shaqeeyaan ama shaqaalaha oo dhan dalkan Jarmalka maaha saddexda goobood oo kaliya shaqaalaha Jarmalka oo dhan booska awood loo siiyo in uu shaqaalihiisa u yeedhi karo weydiin karo qofkii aan talaalayn markaa qofkii aan talaalayn la soo fadhiisto ma rabtaan istalaashid haddii istalaalo shaqadiisa sidiisii usii wadanayo haddii uu diido inuu talaal ma rabana shaqooyinka dadka dhexdooda laga saaro oo meel gaara isagoo markaasi uu ka shaqeeyo si aanu saameyn ugu yeelan sidoo kale horta arrintani Laschet uu doonaya hadda sharci maaha shirkadahoo dhan ma qusayso Laschet waa fikradda uu qabo uu doonaya in la sameeyo oo laga yaabaa markuu isagu hadduu kanslar noqdo inuu awooddaasi yeelan karo laakiin hadda xukuumadda isagu ma maamulo gobolka NRV ama Nordrhein-Westfalen oo kaliya ayuu maamulaa marka haddii isagu mas'uul noqdo ayuu wax ka bedeli karaa laakiin waa fikraddan xukuumaddu kuma raacsana xukuumaddu weli go'aan sooma saarin mustaqbalka dhow waa laga yaabaa in xukuumaddu ku raacdo fikraddaasi qaadato iyo inaanay qaadan labada waa macquul laakiin Laschet fikraddiisa weeye wax sharciyana maaha laakiin ta hore kindergartenada ama goobaha dadka waaweyn lagu hayo ama dugsiyada waxbarashada taasi waa sharci xukuumaddu soo saartay wax shaqaynaya toddobaadkii ugu dambeeyeyna toddobaadkii aan soo dhaafnayna arrintaas la hirgeliyey laakiin tan Laschet uu hadda sheegayaa wax sharciya maaha oo hadda markaasi la hirgeliyey marka taasi waa taa haddaba waxaa jira marka laga imaado shirkadaha xitaa goobaha dhakhaatiirta iyo goobaha caafimaadka oo lafteeda ay saameyn ku yeelatay arrintaasi oo aad moodid waxyaabaha soo dedejin doona mustaqbalka dhowna aanu arki karno lama hubo laakiin ay macquul tahay in la arko in khasab dadka lagaga dhigo inay istalaalaan ama ay guryahooda joogaan bandi galaan ama wax kale lagu adkeeyo ayaa jiraya laakiin Laschet waxa uu aaminsan yahay isagu in arrintaas la sameeyo sidoo kale waxa uu aaminsan yahay sida uu markuu hadlayay uu sheegay sharciga la yiraahdo 3G oo laga wado saddexda la ogol yahay macnaha qofka talaalan in uu xor yahay qofka corona ka bogsada intuu corona ku dhacay kadibna ka bogsada kaasina oo haysta waraaq cadeyna kaasina inuu xor yahay qofkii tasti haystaana inuu xor yahay marka dadkii aan talaalayn ayaa weli culayskiisii saaran yahay oo qofkii aan talaalayn waa inuu tasti soo qaataa oo isu soo baadhaa haddii shaqada aad tegaysid xitaa wax macquula in shirkadaha shaqada xitaa ay kugu xidhaan inaad isbaadhid easy way waa isbaadhi kartaa laakiin dhibaatada waxay ka taagan tahay bisha 10aad marka la gaadho baadhitaankan shneela tastiga ahi lacag ayuu noqon doonaa oo maalin kastoo aad shaqada tegaysid waa inaad lacag bixisaa si aad shaqada u tagto tusaale ahaan maanta shaqada tagtay 15 euro ayaad bixisay oo baadhitaan ah berrina 15 euro ama 20 euro ba ka soo qaad 30 maalmood imsa cisha la shaqeeyaa horta
toddobaadkii 5 maalmood baa ka soo qaada 4 toddobaad weeye 20 maalmood weeye 20 maalmood baa shaqaysay 20 ka maalmood waxa kugu baxay maalintii 20 euro 5 maalmood 100 euro 10 maalmood 200 euro 20 maalmood 400 euro 400 euro ayaad baaritaan kaliya ku bixisay waxa ku dheer cuntadaadii waxa ku dheer cabitaanadaadii waxa ku dheer tigidhkii aad bas ku raacaysay ama tareenka ku raacaysay ama gaariga shidaalka ku shubanaysay noloshaadii kale ayaa ku dheer marka lacag kirada guriga leeg ayaad baaritaan ku bixinaysaa talabteedu waa dhibaato kale oo taagan qofkii markaa aan talaalayn saameynaysa oo dhibaatadeeda leh marka taasi waa taas qofkii aan dadka aan talaalayn culays ayaa la saaray laakiin weli sharci lagama dhigin talaalkii haddaba culeysyada la sii saaray iyo waxyaabaha markaasi macquulka ka dhigaya in sharci laga dhigi karo mustaqbalka coronavirus talaalkiisa ayaan idila sii wadaagaya dhakhtar ka mid ah dhakhaatiirta ka shaqeeya gobolka North Rhine-Westphalia ayaa sheegay in uu daaweyn doonin ama aan dhakhtarkiisa ama isbitaalkiisa aanay soo geli doonin ama isagu aanu gacan saari doonin qof aan talaalayn waxa uu sheegay in dadka aan talaalayn ee diiday inay istalaalaan in aanu isagu daaweyn doonin laga bilaabo sanadka 2022 marka 2022 la gaaro inaanu daaweyn doonin qof aan talaalayn oo dadka talaalan oo kaliya uu daaweyn doono waxa uu sheegay dadkan aan talaalayn ee corona in laga talaalo diiday marka hore waa dad tiro yar oo waa dad laga tiro badan yahay sidoo kale waxay dhibaato badan ku yihiin dadka talaalan iyagu talaalka qaatay haddii la eego dhanka maaskaraha haddii dadkoo dhan wada talaalaan lahaayeen buu taagan yahay dhakhtarkani maaskaraha ayaa lanaga deen lahaa haddii dadkan istalaali waayaan sanadka 2022 kale maaskaraha wuu nala sii soconaya sababtoo iyaga ayaan talaalayn sidaa daraadeed dhibaata ayay ku yihiin dadka aan talaalayni kuwa talaalan sidoo kale waxa uu qabaa in ay sababayaan in iskuuladii la xidho waxa uu sheegay inay sababayaan in dalkii bandow la geliyo waxay sababayaan in isu socodkii iyo xorriyadii dadka kale ee talaalan ay ka qaadaan sidaa daraadeed dadkaasi dad fiican maaha anigu uma shaqaynayo mana daweynayo ayuu taagan yahay dhibaato ma lahayn haddii kulligii fikirkaasi qabi lahaa laakiin dhakhaatiir badan oo kale isla gobolka North Rhine-Westphalia iyo gobollo kale ayaa fikradda dhakhtarka ku raacay oo sheegay inay tahay fikrad fiican arrin wanaagsan tahay loo baahna in hore loo sameeyo isla markaasina iyaguna ay samayn doonaan sanadka 2022 taasi ayaa waxa ay calo badan ku abuurtay isla markaasina aad uga soo horjeestay ururka dhakhaatiirta ee gobolka Niedersachsen oo sheegay in arrintaasi macquul ahayn oo dhakhtarku aanu qofka ku xiri karin aragtidiisa fikirkiisa iyo waxa uu aaminsan yahay nooc kasta ay ahaataba saadaraad isagu mas'uuliyadiisu tahay inuu dabiibo ama daweeyo dadka ee aanay qusayn qofkaasi waxa uu aaminsan yahay uu daweynayo haddaan isku diin ahayn hadda qofkaasi qofka ifka kugu necab yahay marka uu dhibaataysan yahay dhakhtar tahay waajib ayay kugu tahay inaad daweysid oo waxaad ku dhaaratay cilmigaad baratay waajib kaaga dhigayo inaad samaysid marka waxay sheegeen inay ciqaabi doonaan dhakhtar kasta oo arrintaas ku kaca kan hadda ku dhawaaqay ha ahaado ama kuwa kale fakirkiisa raacay ha ahaado ama dhakhtar kale nooc kaleba ha ahaado arrintaasi aad ay uga soo horjeesteen ururka dhakhaatiirta ee gobolka Niedersachsen haddaba su-aashiinii aan dib ugu soo laabto coronavirus talaalkiisa sharci miyuu Jarmalku ka dhigaya hadda sharci maaha waa inta kaliya aan oran karno hadda sharci maaha laakiin berri maxaa dhacaya toddobaadka soo socda maxaa dhacaya bil kadib maxaa dhacaya 2022 maxaa dhacaya taas kama jawaabi karayno laakiin sida ay u eeg tahay xitaa haddii aan laga dhigin qasab oo aan si toos loo oran qof kasta wuxuu ku qasban yahay inuu istalaalo qof kasta waxa hoos qasab looga dhigayaa inuu istalaalo ama masaari mushaharka uu qaadanayo 50% u baaritaan ku bixiyo arrin kale ayaa jirta oo saaxiibo fara badan oo halkan iga daawada ay soo weydiinayeen oo ku saabsan qof maxaad ka wadaa qofka corona ka bogsaday qofka corona ka bogsaday tusaale ahaan anigoo kale corona ayaan ka bogsaday waxaan xaq u leeyahay inaan 6 bilood ee soo socota aanan wax baaritaan ah marin ama tasti aanan iska qaadin meel kastoo tasti la iga baahan yahayna aan bilaa tasti ku galo sida qofka talaalan oo kale oo shahaadada qofka talaalan uu haysto mid la mid ah aan haysto oo aan markaasi ku geli karo halkan haddaba sideen shahaadadaas u samaysanaya anigu ilaa hadda ma samaysan hadda ayaan hawsheedii ku jiraa saa daraadeed jaaniskan ayaan uga faa'iidaysan doonaa inaan qaabka aad u sameynaysaan shahaadadaasi iyo qaabka loo sameynayo aan si wada jira u sameyno muuqaal ayaan idinka soo sameynayaa markaan soo sameynayo marka aan dalbanayo iyo marka ii timaado intaba waan tusi doonaa insha Allah
بعد ما سنتي ساحب بيال برنامج كنا ما انت تساكت أمرنا أنتم برنامج لما يدك كل مدونه ولكن أحمد بقية الله نبت دينه سنبت قريه. باي باي.